haddaad baxdo oo maanta lagu idhaahdo ra-iisul wasaaraha sweden baad la kulmaysa dii lagu idhaha appointment baad la leedahay ra-iisul wasaaraha sweden waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto kow islaanta iyo guriga intaad ku noqoto inaad tidhaha bal dharkaygii horta eegeego oo suudhkii caynka waa kaa xaguu jiraayo waxaad ugu horrayn ka fekeraysaa bal madharkaagu siduu u ekaan doono saad muuqaalkaagu siduu noqon doono markaad is hortaagi doonto ninkaa madaxdee meesha haysta aad bay kuu warwargelinaysa mar labaad waxaa ku warwargelinaya talo maxaad ku tidhaahdaa waxaa laga yaabaa caawo o dhan ama saakoo dhan inaad isku sii dududo hadalka sidaad u odhan lahayd xaggaad ka bilowda xaggaasaad ka bilowda waxaasaad tidhaahdaa saad ninkan saad ula hadashaa waayo insaankan baa kula weyn maadaama aad si leedahay qof magac iyo maamuus kule bulshada dhexdeeda ama mujtamacaad la nooshay dhexdiisa aad is hortaagaysaa waxaad in badan ka fekeraysaa saad ula hadli lahayd alfa xisaab oo xisaab baad sii xisaabtamaysa famaa baaluk markaad rabbulcaalamiin is hortaagayso maxaad odhan lahayd iyada ilaahay baa kuu fudaydiyo ku yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war ilaahay markaa is hortaagaysaan ziinadiinna qaataa lahayd quruxdaada iyo waxaad isku qorruxin lahayd oo dhan ilaahay markaad is hortaagayso subxaana wa tacaala qaado ilaahay baa kuu fududeeyey waxaad odhan doonto ilaahay baa kuu fududeeyo wuxuu ku yidhi waaqimi الصalaata lidikri aqimi الصalaa lidikri ilahay inaad xusto daraaddeed baad salaadan isugu taagaysa waladikru llahi akbar baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofka mu'minkii markuu maskaxdiisa waxaasoo dhammi ku soo xaadiraan markuu soo xaadiro cidduu is hortaagaya ilaahay khaaliqa ahaa ee abuurtay ee kownkan oo dhan lahaa inuu yahay markay kugu soo xaadirto ilaahay ku nimceeye waxaanoo nimcaa ku siiyey inuu yahay markay kugu soo xaadirto waxaad samaynaysa iyo gaboodfalkaagi iyo nuqsaantaadii o dhan idan tabkii amaama allahi subxaana wa tacaala waxay keensanaysaa qofka mu'minka ah inuu ilaahay isu dhuldhigo subxaana wa tacaala marka aad xasuusato ilaahay weynidiisa tacdiiman wa ijlaalan lirabbi alcaalamiin waxay ahaayeen markaasi saxaabadu siduu matraf taabicigii la odhan jiray can abiih uu ka warinayo xadiidkii abi daawuud uu warinaya albanina uu tasxiixinayo raxmat ullaahi calayhim axmed iyo tirmadi iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma dhammaantood ay soo saareen waa kii matraf uu leeyay aabbaa wuxuu igu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baan arkay ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziizi الraxaa min albukaa wa fii riwaayati nisaa'iyi walijawfiha aziizun kaaziizi اlmirjan isagoo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam guuxa iyo reenka laabtiisa ka yeedhaya oohin daraaddeed uu guuxaya yacni waxa uu tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalan salaaddiisaasi markuu rukuucayo waxyaabuu akhriyo waxaa ka mid ahaa ee sunnada inoogu taala allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadmii wacasabi yacni alfaadan tasawur nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo rukuucsan oo ilaahay la hadlaya oo le ilaahayo waxa kuu dulloobay oo isu kaa dhuldhigaya maqalkayga araggayga lafahayga acsaabtayda dhammaantay baan ilaahayo kuu isu kaa dhuldhigaya